This is the rural areas of Pitale in Galmudug state of Somalia, an area packling under repeated and severe droughts devastating grazing land for animals. The dire water scarcity is causing lethal conflicts between clans and families here in Pitale rural area. There are 4 water sources, shallow wells, in this rural area south of Pitale village in Galmudug state. These water sources have been destroyed in inter-clan conflicts and dried up during repeated droughts. The water-related conflicts in this area have been taking place for over a decade. Some 30 people have been killed in this area in water-related conflicts and displaced about 400 nomadic families to urban towns with better access to water, such as Galmudug town. I have asked members from both clans how this has affected them. dad badan baa dhulka ka deegaan kacay oon alligiis waxaan dadkaas u guuro oon wataas ceeshu cabi jiray waa wada gorof biyihii booyadaha lagu keeni jirayna way adkaysan waadeen 2 sano hal sano markii lagu soo baxo dadkii waa u dul qaadan waaday booyadu waa lacag badan yihiin meeshu ceel ma leh balli ma leh dadku wuxuu ku nool yahay nafta lagu qabtaa booyado laga soo qaado 40 kilomitir ceel loo jira booyada $400 baa laga bixiyaa konto qaada mid ka weyn waa $500 $600 weeye dadkuna waa dad xoolo dhaqataa oo ribaadiya oo xoolahooda abaar ay soo mareen oo ay sabeecna lahayn marka dib badan baa meeshan ka jira biyaha waxa lagu keenaa $15 midaas waa maranta wata midaasna hal dareen baa ku jiro gaarigi biyaha noo dooni lahaana waa naga halaab marka horena awrmaana wadin biyaha hadda naga dhamaadaan diranana kuwaan hadda ma diran karno baahida nagu wanaagsato waxa weeye on. These nomadic clans are unable to buy water and receive water from local charities funding trucks to deliver water. Large groups of nomadics gather when temporary water storage points are made. It is at these points where conflicts break out. Here in Hangold, there has been numerous disputes over water distribution because of no water agreement exists. This is the borehole in Pitale village that provides water to the surrounding areas. 70 kilometers away is a Gumaso, also reliant on this water source. Here I met with Pitale village government officials and the borehole caretaker in the village. I have asked them how this has affected the borehole. Uleysku waa tirbadan yahay biyaha loo qadaa dadkaas abaaraysan oo ka soo deegaan kacay awal ii sheeg meelihii ka soo barakacay ilaa ii sheeg dabad galasoor aagaas ilaa cadaado ilaa ii sheeg xardheero ee dadka soo qaxdo ii sheeg hadda ay haysto ii sheeg qoladan al-shabaabka ay haystaan dadkii markuu soo guurana malaha ii sheeg ceel kalato oo biyo loo qada malaha sidaas awgeed marka ii sheeg uleysku saas u farbatay ceelka waxa weeye lama damiyo. I am organizing a consultative mediation between Reer Nimcaale and Reer Jalaf sub-clans of Habargidir clan group that has been fighting over water since 2011. In order to build consensus, I first meet separately with elders of both opposing clans. Here I am meeting with elders of both opposing clans. My task is to build consensus on agreed shared water management model. dhibaatada dhan waxa keenaya waa oonka hadii biyo la helo dhibaato ma jiro biyo hadii la helo dhibaato ma jiro ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogto waa wada qaybsan kadhaa waa wada cabbi kadhaa laakiin haddaan biyo jirin wax adigu aad soo qaadatay baa lagu qabsanaya in lagu dilan ay taagantay qof walba waa jecel yahay guriga waa jecel yahay qof waqti waxa biyaada ma taasabo laakiin wax markii diyaarsan yihiin
waxay markuu nagaalina warmaanta waana laga cabaa hadda balbisoo kale waa laga soo cabaa bitaalo kale way ka cabaa. I also met with the women groups for their views. dhalatay in laga guuro oo laga barakaco meeshii laga tago in baalka la yiraahdo la soo qaadan waayo biyo anakoo qarash ah lagu soo qaadan waayo qarash aan haysan waxyaalo badan baa macnaha oo baahiyo hooyadii noo soo gaar weyday iyo waxyaalo badan baa jiro. I am in a camp in South Galkayo in Galmudug meeting with women who were displaced from Bitale rural areas because of water conflicts. waxaan ku suganahay kaamkan oo la yahay Bermudug oo ay ka kooban yihiin 250 qoys oo barakacayaal intaas u badan abaaro soo barakaciyeen biyo la'aan abaaro intaas dalantaalisa 4 sano u dambeysay dadka xoolo ka dhamaadeen baa jooga awada ugu weyn oo soo barakacayaan dadkan biyo la'aanta ka mid ah dad baa xataa asqadii uga dhintay oo u geeriyooday hanbadoodana waa tan hadda caymis ku jiraan. After 2 days of consensus building and mediation meetings, both clans agreed on a set of principles to reduce their water conflicts and promised to work together to share access to water in this area. Most importantly, both clans agreed to the establishment of a water management committee including women and minority groups to manage water source. أنا وحنا هدتك ماشان دكان أورهمية أو جودة ماشان وحنا وهاي أخصو عيش بان نجفق عيش وين نجفق تأديات وحنا بهنا بيها أديات كوا وقندي سنة وين كلا نلاقي أنا سيدو كلا تبان وقندي سنة يسأ قال يترتيب وحنا دول إن دتك كلا تو أو سيدو كلا مسلمين تا إنه وقندي دان دتك سيداس كلا تو